dad badan baa xalay seexday si aynu u seexanay waan soo noqonin oo rasmigii u guuray dad badan baa xalay seexday oo haddana ilaahay baa mahadle caafimaadkanu xalay ku seexanay nagu soo kiciyey alla ka cabsiga waan isu dardaarmaynaa mar walba fagaaro walba waan is xasuusinaynaa waayo qabri iyo qiyaama inaga dambeeyo qof walba waa la xisaabinayaa taasi waa intaa marka ku xiga waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaan uga mahadnaqayaa taariikh cusub oo shaqadeedii hore ee mikrofoonkan qaranka ugu dadaaliyay iigu kabay ama iigu laray oo ah amaanada wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishanka qaranka oo ah halkii aan ka shaqaynayay halkii laabteeda ku jiri lahayd haddaan xil u baahanahay inaan isleeyay waa meel hooy iyo hiilba lagula garab taagay rag iyo dumarba yar iyo weynba waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynuhu dhalinyarada aan ka mid kahay oo magacaabay oon aaminsanahay qaar badan oo ka mid ah inay dhasheenba markii madaxweynuhu isagoo London ku noolaan karayay xilligii SNM oo jaraa'idka waaweyn ee Ingiriiska ku akhriyi karayay London uu duurka u galay kuwa uu maanta mustaqbalkooda dhisay waa kuwa maalintaan isagii rag kale oo la mid ah ay dhiseen markaan u soo noqdo munaasabaddan iyo hawshan marka ugu horeysa waxaan aaminsanahay halku dhigi ahaa ilaahay naxariisana ka waraabiyo cali sugulle dun carbeed tuduc baan ka soo qaadanayaa ama eray ahaa markuu wada tashiga iyo shaqada sida aanu qof quri waxbaba u ahayn inkastoo raganimo iyo haliyeynimo iyo wax walba u dhasho haddana uu ahaa runtii muxuu ahaayeen aan soo qaatay kelmadda waxay ahayd diric kali ahaantii daleel guusha kuma helo dadka geesi lagu yahay waxa rasmiya inta halkaa fadhida ee shaqaale nooc walba leh oo waliba saddex bah anigu aan u aqaano bahda koowaad waa intii aan anigu ugu yimid xirfadda bahda labaad waa intaan mar wada limid bahda saddexaad oo naftood hurayaal oo aqaana oo dhalinyaradii iga dambeeyay da'deeda marka loo eego waxaan aaminsanahay idinkaan geesi idinku ahay idinkaan wixii ii suntanee riyadayda la rumayn kara marka ay u garab gashaan waxa iyadana aan xasuusnahay daacadnimada marka la yiraahdo maxamed ibraahim warsame hadraawi gabayadiisa tuduc ka mid ah ama eray ka mid ah oo runtii ahaa qofba wuxuu ku degan yahay halku daacad kaga haro qofba wuxuu ku degan yahay halku daacad kaga haro anigoo mas'uuli haddaan khiyaamo la imaado ana baydahadayda maalintaas mid dibadda taala qofkii shaqaale ah isna khaayinimo ama agabka uu ka mas'uuliyay ama waqtiga shaqadu ka mas'uuliyay isku dayayna wax u dhimaysna maalintaas uun beylahadiisu qaawantahay sidaa darteed marka koowaad waxaan isu dardaarmaynaa inuu xafladan halkudhiga uga dhigayaa afar eray oo kooban oo laga yaabo in dadka qaarkood muddo badan xasuusan doonaan waayo waxaan afartaa eray u soo qaatay xil wasiir soo magacaabo marar badan baan soo arkay xil maamule ama mas'uul TV gaar u leh oo soo magacaabana marar badan baan soo arkay laakiin digreeto madaxweyne waa markii ugu horeysay lagu magacaabo sidaa darteed inaan wax suntaa waa muhiim waan rajaynayaa insha Allah riyadaas in Ilaahay rumeeyo afartaa kelmadood waxa weeyaan kow waxaynu ka dhaqaaqaynaa ku dhameysanaynaa daacadnimo qodobka labaad waxaynu ku bilaabaynaa shaqada ku dhameysanaynaa waa dadaal qodobka saddexaad waxaynu ku bilaabaynaa ku dhameysanaynaa waa dulqaad qodobka ugu dambeeya afraadna waa la xisaabtan iyo dabagal haddii aan shaqada si kasta oo loo wanaajiyo la isku dabagelin oo lagu wada xisaabtamin anna waxba ima qabsoomayaan intiina halkaa soo fadhidana waxba uma qabsoomayaan mas-uuliyiinta inaga sarraysana waxba uma qabsoomayaan waxaan halkan intiina halkan fadhida iyo madaxweynaha iyo shacabka reer Soomaaliland uga ballan qaadayaa in astaanta shanta xarafa ee Somaliland National Television ay ka kooban tahay marka la soo gaabiyo aan dareensanahay haybadda iyo hibada iyo karaamada ay huwan tahay oo ah sumadii qarankan sidaa darteed sidaan naftayda iyo ubadkayga uga turo wax ceeb ama dhib ku ah waxaan ballan qaadayaa shanta xaraf inaan u hagar baxo haybadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee igmaday iyo shaqaalaha ku mas'uulka ahay inaan meel ka soo meel gaarsiiyo erayga ugu dambeeya ee ku soo gunaanadayo hore loo yiri hadal nin dheeriyayna ma wada oran
نقابيين كما وذا تجين كلمة كجنب حياة قدام بيسوي حويا تلفزيون كأنت هالكم فرداء أما وساردي ورفافينها أنت جوالله كشة قيسة أنت دبدها كسبان جودها وحن درنسنا هاي أنا عدنا إيجا وجوجال هين نبت إياها وكهوش علوس هاي دوشة كوهيان أما أي كل احترام وقف مسكح لك الشقين يوم مرنا صوري عرض سلا دوننا يا وقف مرنا مقال قدوة يكفكر يا إيش هي مسكح هذا إسكوهيا وقف مرنا كفكر يا وحب حياة قدام بيا سيدو قلنا قلها وحنا نظيفة ويو كاميرات إري راعي ويريد كبال مريبا قرن كان روبي كلا وحن درسنا حساسية ده هي هاليستا اللي هاي مسؤولية تلقي بيكوك تايوا تلفزيون قرنكا والله يقال حساب تميو كلمة ذاك جنب حياة وحويه أورك الله يرى إخوان المسلمين تاريخنا مركل ليجو واحد اللي تصديت السنة أما شنية تضبط السنة ضد تاريخ ذاك كان أي واحد هاديني إن الحكم كذلك مصر قاعدة كلها واحد الله يرى هذا في الشدة كوب نيده حق المسؤولية ده إياه عن الشدة كبير فكري تاريخ سواء ينبري ساتضبط بقوله وسارد لنا الشيء كشقيو حلقة مانت الليدي لو كل جاي تاي إخوان المسلمين سند ما هينين مصر هدي أيوة كله وإذا واحد نقول إن تدفل الشدة ونشعلاء عن هنا الشدة وكفكرين إن بدن بين الله هين الرومان يمين إن بدن بين الله هين كربتشوك بايمين إن بدن بين الله هين دت كلام قرينين بالك هنا ما أنت بدحويلي وحولي أتفعل اللي بيقان سوديو قلنا حرفة وسارة وفافيتو إن بدن بين حلنا بالمان تكوين دعما إخوان المسلمين بين نقول سنة بين كوفة شنو ودي بلينا سوق عادي مايو أما واحد نقول إن شاء الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاريخ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته